Waxyaabo qurux badan iyo nolol ifaya, macmacaan iyo cuntooyin ayaa lagu wadaagayaa goobaha uu ka dhacay xuska dhalashada Nebi Muxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Waxaa arrimahaas weheliyay nebi ammaan iyo kulamo xasuus ah, calamo iyo meelaha qaar oo laga shidayo shumacyo. Dhammaan dalalka Islaamka waxaa sanad kasta xilligan oo kale ka dhaca xuska dhalashada nebiga salawaatullaahi calayhi wasallam ee mawliidka. Balse su-aasha la xiriirta halka laga dhaxlay xuskan ayaa sanad kasta soo noqota, iyadoo culimo kala duwan ay ka hadlaan, kuwana ay banneeyaan halka kuwa kalena ay mamnuucaan. Si la mid ah arrimo kale oo badan oo islaamka la xiriira, culimmada iskuma raacin sida loo wajahayo xuska dhalashada nebiga. Xitaa maalinta dhalashada iskuma waafaqsanaa sunniyiinta iyo shiicada. Balse inta badan tixraacyadu waxay muujinayaan in nebiga uu dhashay bisha Rabiicul Awal, balse dabaaldegyada sunniyiinta waxaa la qabtaa 12-ka bisha, halka shiicadana ay xusaan 17-ka bisha. Haddaba waxaa loo arkaa in bishan ay tahay midii dabaaldegyada. Taariikhdan la isku khilaafsan yahay waxa ay keentay in hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan, Ruuxullah Khomeini, in sanadkii 1981 uu ku tilmaamo isbuuca midnimada muslimiinta, isagoo tix raacaya labada taariikh ee xuska iyo maalmaha u dhexeeya. Taas micnaheedu wuxuu ku sheegay in bishan ay isku soo dhowaanayaan sunniyiinta iyo shiicada. Sida siirada ku xusan, nebigu wuxuu dhashay sanadkii maroodiga, oo taariikhda milaadiga ay ku beegnayd intii u dhexaysay 570 iyo 571. Sanadkaas waxaa magaca loogu bixiyey waa xilligii uu Maka weerar ku qaaday boqorkii Yemen ee lagu magacaabayay Abraha al-Ashram. Wuxuu ujeedkiisu ahaa inuu burburiyo Kacbada, wuxuuna adeegsaday maroodiyaal sida uu Alle ku sheegay suuratul Fiil. Sida taariikhda ku xusan, Nebi Muxamed wuxuu dhashay maalin Isniin ah. Taas waxaa laga ogaaday in markii rasuulka la weydiiyey sababta uu u soomay Isniinta, uu sheegay inay tahay maalintii uu dhashay. Sida ku xusan diiwaanka, xuska mawliidka ma ahayn mid caan ah waqtiyadii hore ee Islaamka. Wuxuu dhaqan noqday tan iyo qarnigii 4 ee Hijriga, waxaana lagu xasuustaa xuska mawliidka xilligii dowladdii Faatimiyiinta oo uu hogaaminayay Al-Mu'is, kadib markii uu tegay Masar sanadkii 969 milaadiga. Dadka taariikhda wax ka qora ayaa sheegay in sababta uu hogaamiyahan u abaabulay xuska mawliidka ay ahayd inuu taageero ka raadiyay shacabka Masaarida. Markii ay meesha ka baxday dowladdaas, waxaa dowladda Islaamka la wareegay madax kala duwan, waxaana dhacay khilaaf. Waxaa meesha ka baxay dabaaldegii xuska mawliidka, inkastoo markii dambe dib loo soo celiyey. Waxaa xuska mawliidka ka hor yimid dowladdii Ayuubiyiinta, markii dambena waxaa baneeyey in la xuso mawliidka maamulkii Mamaalikiinta. Xuska mawliidka wuxuu markii dambe noqday dhaqan u gaara suufiyada. Xilligii hogaamiyihii ka arrimi jiray Masar, Maxamed Cali Baashaa, suufiyada waxay xaflado ballaaran oo lagu xuseeyay mawliidka nebiga ku qabteen Masar. Balse si arrinta suufiyada ka duwan, culimada salafiyiinta ee uu hogaaminayay Sheekh Cabdicasiis ibnu Baas, oo dhashay sanadkii 1912 dhintayna 1999, wuxuu u arkayay in xuska mawliidka uu yahay arrin aan san iyo raad toona lahayn. Cabdulcasiis binu Baas wuxuu rumaysnaa in shareecada aysan ku xusnayn mawliidka, maadaama rasuulka iyo saxaabadiisa aysan weligood xusin. Wuxuu sheegay in xuska mawliidka uu yahay bidco. Wuxuu sheegay in muslimiinta uu Alla faray xuska labada munaasabadood oo keli ah, kuwaasoo kale ah Ciidul Fidri iyo Ciidul Adxa, kuwaasoo si weyn ay u dabaaldegaan muslimiinta oo dhan. Haddaba taas waxay muujinaysaa in xuska mawliidka uu yahay arrin ay si weyn iskugu khilaafsan yihiin salafiyiinta iyo suufiyada. Maamulka Asar ee Masar ayaa qaaday mowqif aan dhinacna raacsanayn kadib markii sanadihii ugu dambeeyey uu soo saaray fadwooyin dhowr ah. Qur'aanka iyo xadiiska midna toona kama hadlin xuska mawliidka, balse waa dhaqan soo ifbaxay qarnigii 4 ee Hijriga. Culimada ku tilmaamay in xuska mawliidka uu yahay bidco wanaagsan waxaa ka mid ahaa Ibnu Xajar al-Casqalaani, oo noolaa sanadkii 1371 ilaa 1449, iyo Jalal al-Diin al-Raxmaan al-Suyuudi oo noolaa
1445 iyo 1505, kaas oo u arkay mawliidka bidco wanaagsan oo abaalmarin u horseedaysa dadka sameeya.